الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. ثم أما بعد، walaalayaal waxaynu isxusuusinaynaa geeridii nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo dhimashadii uu dhinto adduunka ka tegay. walahaa fawaa'id wa cibar, iyo inaynu waxyaabaha faa'iidooyinka ah ee ku jira sii raacino, waayo maalin walba waxaynu maqlaynaa qof ehelkeenna iyo asxaabteenna iyo ummaddeenna ah oo la sii sido. walaa zilnaa fii kafla, innagana waxa iska badan inaynaan weli baraarugsanayn ee ciddiyaha iyo micyahaba adduunyada aynu ku haynaynu qaniinsannahay. maxay nagala gudban xaalka lama huraanka ah? rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam bashar buu ahaa. wixii basharka soo marayaana waa soo maraya dhimashadu ay ka mid tahay iyo xanuunkuba, isagoo la mid a walaalihiisii ka horreeyay rasuullada ahaa. dadka casharkaana aad buu ugu tababari jiray nebigu calayhi salaatu wassalaam. isagiiyo asxaabtu isma ilowsiin jirin sidaynu inagu nahay. maalin maalmaha ka mida khudbad buu asxaabta u jeediyey rasuulku oo wuxuu leeyahay, ilaahay wuxuu doorgeliyey addoomihiisa ka mid ah adduunyada iyo aakhiro. wuxuu doortay ilaahay agtiisa waxa yaalla aakhiro ah. saxaabigaa xadiidka warinaya abi saciid wuxuu leeyahay, waxaa naga duwanaa marka abubakar sidiiq oo ilmeeyey iyadoo la arkayo. anigoo nin dhallinyaro ah waxaan idhi buu ihi talow maxaa odayga ka ilmaysiiyey sheekh ama saxaabiga? hadduu nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaasuun sheego qofkaa uu noo sheegay ilaahay agtiisa doortay, maxaa ka oohiyey? laakiin markii dambaan gartay buu ihi nebigu inuu naftiisa u jeeday, abuubakarna uu ahaa ka fahmay. wuxuu rasuulku halkaa inoogu sheegaya ilaahay ambiyada inuu u sheego dhimashadooda, iyaguna kalsooni ay qabeen daraaddeed iyo geesinimo may ahayn dad adduunyada jeclaysanayee waxay dooranayeen ilaahay agtiisa waxa yaalla iyo geerida. culimadu waxay tilmaamaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu ilaahay u kulmiye laba arrimood: nebinimada iyo shahiidnimo. nebinimada waynu garanaynaa iyo risaaladda. shahiidkaana waxay u soo daliishadaan xadiidkaa uu nebigu xusay calayhi salaatu wassalaam maalintii khaybar suntii ay siisay naagtii yuhuudiyadda ahayd ayaa imika xididka halbowlaha ay goysay buu leeyahay, haddaan u dhimanayaa. muddo kadib, 4 sano muddo ku dhowdhow kadib buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u soo dhacay suntaa yuhuuddu ay siiyeen. qoladaa reer khaybar ruux dumaroo ka mid ahayd baa tidhi, maanta waan idin casuumay. neef fadhiya bay soo shiishay, soo hagaajisay, sunna way soo marisay. ila sun iyo sixir iyo sir iyo caadba way isugu dayi jireen nebiyada inay u dilaan yuhuuddu iyo qof kastoo mu'minaba. hadh bay kuu jiidayeen hadday rasuulladii ilaahay laayeen. dirqi buu kaga baxsaday nebigu calayhi salaatu wassalaam. marka labadaa arrimood oo kulmay waa laba darajo waaweyn oo ilaahay nebiga isugu geeya calayhi salaatu wassalaam. markii geeridiisu ay soo dhowaatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu aada u xiisaynayey guriga caaisha in lagu xanaaneeyo, xaquna halkaa ugu yimaado. sidii baana ilaahay u aqbalay, isagoo waraysanayoo lahaa, ayna ana hadan, aroorta xaggeen? macnaha wakhtigaas u ilaalinaya, isagoo aada u jiifoo la qaadayo ayuu cadaaladii dumarka loo cadaalad samaynaya ilaalinaya. ilaahayna waaba ka dhaafayba, maa baaluka innagana maxaad u malaynaysa? aroorta xaggaan ahay, kolba xaafaddii baa la geynayaa habeenkaa u lahaa. markay dumarkiisuna arkeen xaaladdu ku sugan yahay iyo inuu guriga caaisho xiisaynaya, way u fasaxeen.
iyaduna waxay tilmaamaysay allaha ka raali noqda saxaabiyadda qiimaha badan inuu nebigu ku go'ay bayna saxriha wa naxriha iyadoo ay laabta ku hayso waa dad uu tababaro gacantiisa uu ku tababaray nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii haatee laakiin waa inan yar oo 18 jir ah asxaabtii oo dhan iyada xilkaa kala wareegtay abubakar iyo cumar ay ka mid ahaayeen halkaasuu laabtaydu ku dhintay bay nebigu leedahay calayhi salaatu wasalaam iyadoo arrinkaasi mid u gaara iyada u ahaa waxay noo sifaynaysaa caaisha allaha ka raali noqdee rasuulku waxyaabaha uu kala kulmayey sakaraadkii hayay waxay lahayd kaana bayna yaday rasuuli illaahi rakwatun aw culbatun fiiha maa weel biyo ku jiraan ayaa nebiga hor yaalla calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu gelinayaa biyaha gacantiisa wejiguu ku masaxaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam biyaha qabow waxa uu leeyahy laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat towxiidkuu ku celcelinayaa nebigu waxa uu leeyahay dhimashadu waxay leedahay xanuun ugu dambayntiina waxa uu leeyahay allaahuma fi rafiiqi alaclaa ilaahow jamaca kore ayaan doortay jamaca kore waa ambiyada iyo malaa'igta waxaan ku gartay bay tii rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu dhintay gacantii uu kor u taagaya hoos u soo dhacday markaasay baxday oo dabeetana raggii bay u sheegtay oy leedahay qubida rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam maan arag bay tidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cid ka xanuun badnayd ama xanuunku kaga adag yahay intaa kadibna lama yaabin cid kastoo xanuunku ku badan yahay oo aan arkay kol haddii rasuulkiiba sidaa sakaraad loo soo mariyey oo ilaahay dembigii hore iyo kii dambeba uu ka dhaafay macnaheeduna wuxuu ahaa xanuunkaa badan inuu ilaahay derajo kor ugu qaadayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu sakaraadku ku sii bato wuxuu odhanayay bay tidhi waa xadiidka saxiixa ah waxa igu shubtaan 7 qarbadoo biyo ah oo aan weelba laga darin annaguna amarkiisa waanu qaadanayno intaanu saxan weyn dhex fadhiisino ayaanu kolba ku shubnaa dee kulaylka biyaha lagu qaboojinayaa waa lagu qaboojinayaa waxaa ag fadhiday inantiisii faadima kolkay aragtay dhibaatada badan iyo xanuunka aabbaheed haysta ayaa waxay leedahay waa kurba abaah aabbahay kurbada haysaay nooc naxdina nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam laysa calaa abiiki karbun bacda alyowm maanta kadib aabbaha kurba ma haysato iyadoo uu sheegayo inuu ilaahay uga raaxayn doono waa dad uu tababaray baroor ma laha qaylo ma laha u qaadan waa ma leh xaaladdaa isagoo nebi maxamed ku sugan calayhi salaatu wasalaam ayaa haddana uu xambaarsanaa hamiga ummadda iyo hamiga dacwadda iyo diinta oo ah xilkii ugu weynaa ilaahay u soo diray subxaana wa tacaala halka laga yaabo qofku innaga xaaladdaa markuu ku sugan uu sii dhimanayo wuxuu ka hadlaa dhakhtarkii la geyn lahaa iyo xanuunka hayo noociisa iyo sidii loola tacaali lahaa iyo inuu dardaarankii iyo wuxuu bixin lahaa iyo dadka siduu u kala farsamayn lahaa buu ka hadlaa danihiisaa kama hadal nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo xanuunkiisa arrinka ummadduu ka hadlaya dardaaranadiisii markaa 3 arrimood baa ugu dambeeyay oo ku saabsanaa caqiidada iyo cibaadada iyo arrimaha ijtimaaciga ee ummadda xuquuqda ilada sidii loo ilaalin lahaa xaqa ilaahay iyo xaqa ummaddu dardaarankiisii ugu dambeeyay ahaa الصلاة وما ملكت أيمانكم صلاة إلالية وصلاة ذلك يسهل كأمة الإسلام كهذا كتاجنت وحا إلاليستانو كلا وحا قعمهين كتشره ملكي سنتهين ولماذا وحا كفسران وأضامها وضد بدن آنا أرونين وقت كانت شري إنه قفك حنانا قفك إنسان كأه بني آدم كأه أو حقي سسيو وأنو كحد قدبين وحكالو النبي حسي عليه الصلاة والسلام لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الله نعذر اليهود يكوى نصارى الله إله النبي يدود حباله ذي بيكسم يستين مساجده ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك
wardadii haw xabaalaha iyo masjidka kala daaya anigu arrintaa waan idiin diidayaa buu ugu dambaysiiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oo waa arrin ka timi shisheeyaha in masaajid iyo xabaal la isduldhigo waayo cibaadada ilaahay baa leh qabrigu ma leh qofkana ma leh marka xaqii khaaliqa iyo cid kale inaan la isku dhex darin waa arrin waajib ah dardaaranadii ugu dambeeyuu nebigu ka hadlaya kuwaas ahan calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhintay rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalin 12 bisha rabiicul awal ay 12 tahay oo isniina maalinkaa iyo maalinkii salaasaad labadaba waa joogay rasuulku sala allahu calayhi wasalam lama aasin habeenkii arbaca ayaa la aasay sida mashhuurka cinda aljumhuur culimadu ay u badan yihiin duruusta iyo casharada aynu ka qaadanaynaa way badan yihiin laakiin waxaa ka mid a ana almowta sabiilu kulli xay geeridu inay tahay waddo noolo kastaa marayo gaaladu markay yidhaahdeen maxamed uu ina wareeriyo uu inaga dhiman doonaa balaan sugno ilaahay wuxu uhi subxaanahu wa tacaala innaka mayitun wa innahum mayituun adiguna waa dhiman iyana way dhiman maxay geeri kula sugi mayaga hadhaya sidaa daraaddeed itaal darrada ayay ka mid tahay insaan inaad la sugto dhimashada xal kalood gaadho mooyaane wax lagu farxo oo lagu faanana maaha qofkaa dhinto ishayseen qof ehelkaaga ah ama ummadaada oo aad aada u jeclayd oo dhintayna waxaad ogaataa inuu dhimashadu lama huraantay adigana aanay ku gafayn kullu nafsin daa'iqatu lmowt noolo kastaa geerida u dhadhamin buu lahay wainnamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can innaari wa udkhila aljannata faqad faaz kolley noolo waliba wuu dhimanayaa qofka maalinta qiyaamaha abaal wanaagsan hela ee ilaahay naar ka badbaadiyuu janno geliya kaasaa liibaanay nihaayadun baa la eegayaa waxaa labaad oo aynu ka faa'iidaysanaynaa suhdiga nabiga calayhi salaatu wasalaam macnaa adduunyada isagoo gacanta ku haya siduu u fudaydsaday haddana rasuulku sala allahu calayhi wasalam waayo wax la isku karaya maaha hamiga ummaddee diin iyo dacwad iyo dadba inaad qaaddo dunyadana daba cararto waa laba hawlood aada isugu dhib badan marka culayska u yaalla markuu arkay isagu wuxuu doortay inuu iskaba daayo bahasha hawsheeda arrimaha khaaska haddaad u baxdo kuwa caamka way iska libdhaan sidaa daraaddeed waxaa siirada ku xusan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka tegay baklatahu albaydaa wa silaaxa hubkii uu haysto cadowga kula dagaalamayay iyo baqashii uu fuulayo keliya uu ka tegey isagu saasuu doortay asxaabtiisa uma diidinaya ummadda oo adduunyada waa la dhaqanayaa laakiin ikhtiyaarkuu qaatay baa ka ahaa halka cuhmaan binu cafaan iyo cabduraxmaan ibnu cawf iyo zubayr ibnu cawaam iyo tujaarta ay ka mid ahaayeen waxyaabaha aynu ka faa'iidayna waxaa ka mida nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisu waa min acdami almasaa'ib musiibooyinka ugu waaweyn ee qofka muslimkaa soo mara weeye isagaana taa inoo caddeeyeoo xadiid sugan waxa uu ku leeyahay midkiin haddii musiiba ay ku dhacdo dhimashadayda ha xusuusta fa innahaa min acdami almasaa'ib waxay ka mid tahay balaayooyinka waaweyn ee dadka muslimiintaa soo mara asxaabtu aad bay u dareemeen arrintaa xokayntiisii ama khaadimkii ka ag dhowaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam anas binu maalik isagoo taa ka warramaya wuxuu idhi markuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam madiine noogu yimi adaa'a kullu shay wax waliba wuu iftiimay iftiin aanu dareemayno maalintuu dhintayna adlama kullu shay wax waliba wuu madoobaaday xataa ankarnaa quluubanaa annagii baaba qalbigayagii garan weynay buu oo markiiba xoogaa didmo iyo dareenaana dhex galay oo waa kuwii dadka qaarkoodba gaar u shirshirayba marka iftiin buu ahaa ilaahay caalamka u soo diray sidaa daraaddeed iftiinkaasoo dadka muslimiintii ay waayeen musiibada u weyn weeye taa macnaheedu markaa waxa weeye qofku waa wuxuu isku qancin karo haddaad ehelkaaga weydo ubadkaaga weydo asxaabtaada weydo qof kastood jeceshahay de waa wuxuu qofkii isku qancin karo khalqiga ilaahay kii u fadli badnaa rasuulkiiba soomuu geeriyoon sala allahu calayhi wasalam ama qofkaba lagu tacsiyen karayo waxyaabaha aynu ka faa'iidayno qisadan ama dhimashada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a laabudda min alcamal camalka lagama dallaco darajada u sarreeye la gaadhaa waa camalkood ku dadaasho lidaalik baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo sakaraadkaasi u hayo
ayaa wuxuu lahaa dadkii miyay tukadeen may tukana way ku sugayaan wuxuu isku yara dayaa inuu hinqado oo bal hadda jamaca hor fadhiisto wuu kari waayaa markuu dirgan waayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu leeyahay muruu abaa bakrin falyusalli binnaas bal abubakar fara dadka ha tukiyeen sidaasuu markaa abubakar dadka ku tukinayay xataa markuu abubakar safay ee jamacii si fiican u sinmay ee uu ishortaagay gurigiisu wuxuu ku nabnaa masaajidka daaqaduu isa soo taagay intoo la hinjiyayoo asxaabtii buu arkood diintii si fiican nabiga uga qaaday calayhi salaatu wasalaam jamicii oogan yahay cibaadadii oogan tahay isadeecayaan abubakar tukinayo intuu dhowla caddeeyuu ku farxay nabigu calayhi salaatu wasalaam ayaa markaa uu jiifsado dibna looma arag dibqan liqowlihi tacaala wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaahay baa amar siiyey rasuulkiiyo ummaddaba wuxuu yihi ilaahay caabud ilaa inta geeridu ku imanayso qofka idhaahda anigu waan ka dallacay soon iyo salaad iyo cibaado oo carshigaan daalacdaa meel baa la igeeyey wuxuu noqonayaa qof xaqdabool ah oo rasuulka barbar marsan sala allahu calayhi wasalam marka addoonka wax lagu imtixaanay weeye cibaadadu kolba intuu karayaanu la imanaya qisada waxyaabaha inoo faa'iideynaysa waxaa ka mid a makriga yuhuudda iyo shirqoolkooda ciddan ay shirqoolayaan ee dagaalka kula jiraan waa rasuulkii ilaahay ee rasusha khatimay ee waxyiguu ku socdo ee ilaahay u warramaya subxaanahu wa tacaala bal rasuulkaasay dagaal kula jiraanay hadh u jiidi waayeen oo ay isku dayeen isagoo hadh fadhiya inay dhagax ku soo ridaan sunaynayaan gacan saarayaan sirxayaan maxaad u malaynaysaa marka arrintaasina waxa ay cashar u tahay dadka casrigan aynu joogno yuhuudda daba cararaya ee ictiraaf iyo ilbaxnimo iyo awood ka raadinaya markay muslimka kala geeyaan bay adhaxda ka jabinayaan kaa iyaga kusoo hadhee daba cararayana waxyaabaha aynu ka faa'iidayno waxaa ka mid a geerida nebiga calayhi salaatu wasalaam inaynu qaadanno tarikadiisii isagu dhaxalku ka tegey waxa uu ahaa cilmi iyo diin culimadu waa dhaxalkii ambiyada ahayaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nebiyadu waxba lagama dhaxlo maa taraknaahu sadaqa naxnu macaashira alambiyaai laa nuurath maa taraknaahu sadaqa annagu nebiyada haddii aanu nahay waxaanu ka tagnaa waa sadaqee dunyana lagama dhaxlabu oo waxaa u soo raacaya intaa horeynu sheegnay hubkiisa iyo baqasha uu fuulayay xoogaa dhul ah dhulkiina sadaqu ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin dhaxalka ambiyadu inuu yahay cilmiga iyo diinta samaawiga buu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam marka inaynu dhaxalkaa qaadanno waxaynu helnay dhaxalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam aqoonta kale ee maadiga adduunyada lagu horumariyo waa la baranayaa laakiin haddii aad aqoontaa meel weyn ka gaadho oo aad ka qaddo dhaxalkii nebiga dhaxal weyn baa ku dhaafay sidaa daraaddeed qof waliba waa inuu calaf ku yeeshaa oo uu ku dadaa cilmiga samaawiga ee nebigu inoo keenay calayhi salaatu wasalaam waxay qisadan inoo muujinaysaa caqiidadu qiimaha weyn ay ku leedahay diinta islaamka dhexdeeda waa asaaskii waa gundhigii camalka yuhuud buu ka digayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam halkay ka leexdeen iyo khatartay ku dhaceen iyo shirkigay sameeyeen iyo inaanay ummaddu kaga dayanin marka waxaynu ilaashanno raasamaal inoo ah waxa ugu weyn caqiidada carruurtaynu ilaalinaynaa dadkaynu ilaalinaynaa innagaa ilaashanaynaa marka arrinku uu soo gaadho caqiidadaada iyo cibaadadaada iyo xidhiidhka adig iyo ilaahay idin dhexeeya cid kale kuma aqbalaysid cid kale kama yeelaysid adduunyada ugama talaasulaysid kaasaa sahay ku ah wax badan oo aqoona haddaad sidato ama adduuna ama magac iyo maal ah maalintaad dhimato dee ku anfici maayaan sahayda keliya ku anfacaysaa waa camalkan iyo caqiidadan oo qabriga kuu nuuraya oo qiyaamaha ku iftiiminayo ilaahayna janno uu kugu abaalmarinaya subxaana wa tacaala arrimaha toddobada ah ayaa mutabaadir ah oo inoo soo degdegaya waxyaabaha aynu ka qaadanayno idan waddadaasi kol hadday tahay mid lama huraan ah hebel baa dhintay maanta inaad kolba yaro naxdo oo aad haddana halkaagii kasii waddo sax ma aha howlahaaga adduunyada iska wada caam iyo khaasba laakiin dardaarankuna ha kuu qornaado iskana diyaargarow gaariga inaad si dhaqsaa uga degi karta wakhti walba ku xisaabta allah inagu anfaco allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحينا سعداء
وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة الأنبياء. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين. اللهم أسق علينا الغيث اللهم أمطر السماء علينا. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح العباد والبلاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.